سنانتا عشقا جير قريب جير بيدويتي جنالتا جنات نسجا لسان هاي كل جري باجري أني مجي سيدا تقدر انت جربتو سنانتا عشقا جير قري جير بيدويتي جنالتا أني مجي سيدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان سو دواada walaalay waqti munaasab ma aha waa dareensanahay maaragtay waxaan rabaa maaragtay si kooban oo yara gaaban maaragtay inaan kaga hadlo barnaamij yar oo ku saabsan fatahaada afgooy barnaamij yar oo ku saabsan fatahaada afgooy inaan ka hadalna rabnaa biidni illaahi tacaala iyo musiibad maaragtay ka dhacday halkaas aan waxaan rabnaa si kooban inaan uga hadalno insha Allah tacaala haddii alla idmaayo waan dareensanahay muddo badan aan ismoogeyn laakiin waxaan rabnaa in maaragtay musiibadaas maaragtay heer qaran gaartay ee ka gudubtay heer degmo iyo heer gobol iyo heer state ba ka gudubtay waa musiibo heer qaran waaye waa dhibaato maaragtay dadkaas afgooy kaligood aysan ka bixi karin walaa dadka gobolka shabeellada hoose aysan ka bixi karin laakiin maaragtay la dhihi karo musiibada waa musiibo qaran sababtoo ah xaafadaha laga barakacay waan soo tiri koobi doonaa haddii alla idmo insha allahu tacaala dhibaatada ilaa iyo hadda uu geystay meelaha maaragtay uu webigu ku fatahay biyahan xaddigooda intuu la eg yahay fatahaadda tan iyo tii hore farqiga u dhexeeya maxay tahay waxyaabo badan aan rabnaa inaan barnaamijkan aan maaragtay aan ku soo koobno insha allahu tacaala marka waxaa idinka codsanaa si aan isku gaarsiino hala sheer gareeyo barnaamijka sababtoo ah waxaan rabnaa anaga dadkaas masaakiinta ah dhibaatada halakaysay in maaragtay aan codkeena ugu deeqno insha allahu tacaala aan rabnaa haddii alla idmo marka waxaan idinka codsanaynaa biidni illaahi tacaala inta yarta hadda ku jirto maaragtay inaad sheer garaysaan si walaalaha kale u gaarto si codkeena uu u gaaro dadka u damqanaya degmadaas iyo dadkeeda fatahaadda iyo maaragtay dhibaatada ee halakaysay marka hore horta codka ma idin soo gaaraa codka bal inuu idin soo gaaro in kale ii sheeg insha allah haddii codka fasiix uu yahay barnaamijka hore uu sii guda gali doonaa codka fasiix ma yahay qaybta commentiga hoos iigu sheeg codka fasiix ma yahay haddii codka fasiix uu yahay ii sheega bal ila wadaaga haa isoo dhaha axmed iyo maarata codka hadduu fasiixa ila wadaaga insha allah si aan barnaamijka hore uu sii socono insha allah manable sheer garee barnaamijka walaalkay gaarsiiya dadka mas-uuliyiinta iyo madaxda kugu jirto ku sheer garee ha lagu taaggareeyo sababtoo waxaan rabnaa dadkaas maaragtay masaakiinta oo dhibanayaasha ah inaa wacalaykum salaam waraxmatullah walaalkay soo dhawow telefoonkaas whatsappka meesha ku qoran waad iga soo wici doontaan insha allah markii maaragtay aan barnaamijka xoogaa faahfaahin yar aan ka bixiyo insha allah hala sheer gareeyo hala gaarsiiyo khaasatan malable madaxda kugu jirta in adeerkay gaarsiiye ma garatay dadka madaxda oo idinkugu jiraan gaarsiiya dadka ha lagu sheergareeyo messengeryada waxa dhan ha lagu sheergareeyo biidni illah insha allahu tacaala marka maadaama waqti kooban aan haysto waxaan guda galaynaa barnaamijkeena yuusa u yaallaa maaragtay hawshaan howl reer afgooy keliya ku kooban miya reer gobolka keliya may ku kooban tahay mase stateka waxaan rabnaa marka barnaamijkan biidni illaahi tacaala in la sheer gareeyo salaan saabir waa ku salaam suldaane barnaamijkan hala sheer gareeyo insha allah
marka barnaamijkan guda galanaa bismillahi raxmaan raxiim sida aad la socotaan degmada afgooye waxaa ka dhacday kaarisa caalamiya wax la dhahay waa maaragtay musiibo heer qaran ahaa ka dhacday weligeed yaan laheyd biyaha si xawli ah 3 habeen 4 habeen gudahooda inay heerkaas ku gaaraan weli kama dhicin degmada afgooye weli kama aysan dhicin waa dhibaato sanadkii hore tanaa ka daran waana taan ka digaynay taan maaragtay aan shacabka iyo dadweynaha iyo maaragtay dhammaan reer gobolka iyo reer state-ka dhan aan uga digaynay ahayd in aysan noqonin afgooye baladweyne 2 taan ka digaynay ahayd in maaragtay aysan fatahaaddan soo laalaabanin in laga taxadaro laga hortago nasiib darro maba la isla gaarinbo oo maaragtay waxaan islahayn haddii alla ku idmaayo waxaan islahayn maaragtay sanadka dambe bal ha laga sii gaashaanto maxaaba la isla gaaraaba maxaaba la isla gaaraa roobkii maaragtay ku gintaal gaara deertiyaaba ka soo hormartayba marka waa dhibaato muggeeda leh waaye dad badanaa barakacay xaafadaha laga barakacay caqligaa diidaayo biyaha wuu ka xoog badan yahay sidii waxaan ognahay sanadkii hore maamulka degmada afgooye wuxuu ka hadla waqti leyd uu ka hadla dambe laakiin maamulka maanta inuu ka hadlo maxaa keenay maamulka maanta inuu ka hadlo waxaa keenay waxay tahay dhibaatada meesha ka dhacday war dadkii aan damqan jirinaa damqaday dadkii aanan hadli jirinaa hadlay fiiri maamulka degmada ma kici jirin mana soo dhaqaaqi jirin way soo dhaqaaqeen way soo kaceen maxaa sababayo waxaa sababa waxay tahay xaruntii degmada aa wax yar oga dhiman xarunta degmada maaragtay yaa wax yar oga dhiman masaajidka kuwaitka waa xirmay isbitaalka qaybta dambe oo dhan waa xiran tahay wuu xiran yahay meel laga soo gala ma leh buundayariista qofka maaragtay horta baawur ma mari kara iska dhaaf buundayariista dadka waa maraynaa hadday dhahaan ilaa iyo miskaha biyaha u imaanayaan feeri xaafadan aytir gol iyo ban ha sheegin horta waa ku daysa yaa imaw raqayle imaw intaad raqayliga horta siifka maaragtay oo dhan waa buuxsame raqayle kor u sii bax maaragtay farta siigaal iyo kor sii aad ilaa iyo aad baal guri oo dhan horta ha sheegin tuulooyin ka sii ha sheegin marka nasiib darrada dadka shacabka haystaa waxay tahay shacabkan reer afgooye nasiib darrada haysataa waxay tahay war heedhe dadka canshuurta ugu badan uu stateka ka qaato waaye canshuurta ugu badan uu stateka uu ka qaataa sabab canshuurtooda awal dhisma laguma celin jirinee sababta hadda loogu fiirsanaayo oo fatahaaddan dhibaatada intaan leeg ilaa iyo hadda 5 maalmood uu socdaa webigan 5taas maalmood cid ka hadashay oo maaragtay koonfur galbeed haba yaraatee ma jirto maaragtay cid u soo damqatay ma jirto shacabka tabartooda way ka badan tahay tan sanadkii hore walaa koonfur galbeed walaa maamulka walaa federaal cid afgooye wax nagala tartay ma jirin annagaa xabadka u garaacnay annagaa maaragtay dadkeena wax u qabanay jaalida maaragtay maraykanka nagu caawisay oo garabna siisay halkii jaaliduna garab istaagtay ahayd annagaa dadkeena maaragtay dhiiqada ka saaranay laakiin musiibada maanta way ka weyn tahay dadkan awood uma laha walaa jaalidan awood u lahayn cid maaragtay oo maaragtay oo wax ka qaban kartaa haba yaraatee ma jirto cid wax ka qaban kartaa haba yaraatee ma jirto marka laakiin marka maaragtay oo la dhaho meel maaragtay jawhara fatahaad ka dhacday baladweynaha fatahaad ka dhacday sida loogu kala ordaayo madaxda ay u kala dhuumanayso waa la yaqaanaa magaaladan caasimadda hoosta kaga jirtane yaa cid ka hadlaysa haba yaraatee ma jirto cid u damqanaysa haba yaraatee ma jirto cilladda baaritaan dheer markaan suubino war xildhibaanada oo stateka degmada keliyaha ma aha brobleemka xildhibaanada keliyaha kama taagna brobleemka waxa uu ka taagan yahay waxay tahay dadka degmada afgooye degan waaye dadka degmada afgooye degan mushkiladda iyagaa hormuud kowka ah sababtoo ah war haddaada adiga canshuur aadan dhiibin fiiri shacabka haddii ay bannaan baxaan mudaaharadaan ay dhahaan war annaga waxaan ma awoodno haddii iyaga aysan hadlin haddii iyaga aysan dhaqaaq isku suubinin war haddaysan iyaga naf isgelinin intee naf looga keenaa war masaakiin yaroo qurba joogta soo qaylisa qaylada waxba idiima tarayso ma fahanteen maskiin yaroo qurba joogo qayladiis waxba ma idiin tarayso inaa idinka dadnimo isgelisaan maanta dadkii waa barakaceen inta hadda xogaa dalcadaha deganne war bariya idinku imaanee canshuurta laydinka qaada xaggee la geeya wiilal yaraa baydhabo qaadka cuno ku qaylo shalayna meel kalaa la geen jira maantana baydhaba la geeya canshuurtiini cid wax idinkaga soo celisa haba yaraateena ma jirto
darada ahayd maamulka degmada boqol dollar ganacsatada ka wada qaaday kol dhow ahayd aan dheerayn raalli ahaada kol dhow aan dheerayn ahayd maamulka degmada boqol dollar dadka ka qaaday wadda yaro waddada macmacaanka xogaa carre iyo jaay lagu shubay war lacagtaas intee aaday lacagtaasu xaggee aaday ma la isweydiiyey maanta fatahaada dhacday maxaa wax looga qaban waayey maanta problemkaana jiray maxaa wax looga bedeli waaye marka heer waxay joogtaa maanta magaalada saddex dooyin loo kala raaco magaalada 3 doomooda loo kala raacayo hadda bal fiiri waa hal gedi magaalada ka mid ah waa 3 doona loo kala raacayo suurtagal ma noqonayso marka aniga waxaan ku dhiirigelinaa waxay tahay waddankaas hadda sharciga ka jiro waad ogeedeen kii maaragtay timajarihii magaalada lagu dilay ninkii dilay waa la toogtay waa la dilay war qofkii askari ama maaragtay kan canshuurta qaada hadduu qof dil u geysto war sharciyaa yaallo buunkan ku yarinaynaa waa la soo qabanaa isagana tiirkaa la geynaa maanta cid ku fudlaan karta ma leh walaalayaalow canshuur ha dhiibina war dhagaha fura wax canshuura ha dhiibina awal waddo xiranay ahayd laakiin markaan magaaladu dhanaa xirmatay fatahaada dhacday cid wax idinkaga qabanaysa ma leh inuu guddoomiyaha boor soo hor istaago waxay haba yaraatay taraysa ma leh boqolka dollar daraad uu guddoomiyaha uu dadka shacabka ka qaada hal waddo carro ku shubay walaalkiisuuna ugu danayay in baabuurta walaalkiisa maaragtay Shucayb Cumar Qaasin baabuurtiisa in carro jaay lagu daldalo war business uu ahaa kaas ganacsi uu ahaa dad waxba looguma taraynin kaas ganacsi uu baabuurta qorshe degsan uu ahaa baabuurta walaalkiis in maaragtay la kireeyo lacagta dadka aan ka qaadna aan cunno waaye ma fahantii heshiis uu ahaa kaas waxba yaa laydin maaragtay marin habaabinin canshuurta diida walaalayaalow canshuurta diida hadhow haddii qof maskiin ahoo canshuur diiday loo dilo haddii loo dilo ciddii dishay sharcigaa lala tiigsanaa dowladda meeshaan jirto dowladdaa kala xisaabtamayso tiirkaa isagana sugaayo qofkii qof dilo waa la dilaa canshuur ha dhiibinaha canshuurta xoolihiina cishta walaalayaalow xoolihiina cishada ma fahantiin marka barnaamijkan joogto noo noqon doona saacad ma lahaan doona waqti ma lahaan doona anytime aan soo gali doona haddii alla ibn laafi awdhiigan marka haddii alla idmo waxaan kaga hadli doonaa fatahaadda degmada Afgooye barnaamijkan hadda tijaabo u ahay insha allahu tacaala ha la wada sheer gareeyo dadka ha la wada gaarsiiyo maamulka koonfur galbeed hore ugu ceebo madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen waxaan ku leenahay mudana madaxweyne horaa ceeb idinkaga raacday maamulka ee ceeb uga raacday amni darrada dhibaatada iyo dhismaxumada iyo balaayada ka jirta meeshaan ma fahamtay horaa dhibaato ceeb idinkaga raacday mid kale idinkugu darsamin mid kale yuuse idinkugu darsamin mudana madaxweyne intaan ha idinkaga ekaato dadkaas dhiban waxa loo soo maaragtay haddii alla idmaayo saan ha loo dhaamo mudana madaxweyne dadka dhiban saan ha loo dhaamo magaaladan dhibaatada ka jirta waa dhibaato caalami ah isteedka kaliya xataa kuma filno isteedka kaliya kuma filno waa in heer federaal gacanta la geliyaa waaye insha allahu tacaala haddii alla idmo howlo ka hadda telefoonno muhiim ah ay soo galay waana ku soo laaban doonaa insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu